Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waanigu Dr.Yusuf kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka aan soo galino halkan aan ku leenahay barta YouTube-ka video aqoon guud oo ku saabsan talabixinta caafimaadka. Fadlan haddii aad ka heshay videoda aan soo galino channelkan fadlan subscribe garee channelka una sii share garee qof aad jeceshahay iyo family kaagaba anigu Dr.Yusuf maanta waxaan ka hadlaynaa jidh xanuunka ama laabatooyinka oo ku xanuuna khaas ahaan dumarka xiliga ay dhaafaan da'da 40ka oo had iyo jeer ay ku yimaado isbedel xaaladeed oo hoormoonku isbedelo xiliga 40ka la dhaafo ama dhowr iyo 40ka waxa dhacda dumarku inay hoormoonkooda hoos u dhaco khaas ahaan hoormoonka loo yaqaano estrogenka kaas oo ku sababa qofka waxyaabo fara badan isbedelka xaaladeed ee sameysma ayaa waxa sameysma isbedel badan iyo qofka uu ku sababo marka maanta waxaan soo qaadaynaa bal laabatada oo ku xanuunta tusaale ahaan oo kale laabato kasta oo jidhka aad leedahay oo ku xanuunta ama jidh xanuun guud oo si guud ah ku xanuuna had iyo jeerna xanuunkan wuxuu qofku aad iyo aad u sii dareemaa xiliga fiidkii iyo habeenkii oo kale oo qofku ka caawdo odhanayo waxay xanuunay laabatooyinkii xanuunaya ama jidhka oo dhan wada xanuunaya si xaaladda qofku ku timid ma isbedelka yimi wuxuu ku sababaa si khaas ahaan ah oo aan topican uga hadlayo oo ah laabatooyinka oo ku xanuuna sidaan ognahay hoormoonka estrogenku wuxuu ku leeyahay receptor ama u qaabilsane ayuu ku leeyahay meel kasto ama oo jidhka ah tusaale ahaan oo kale marka fartaada oo kale laftan iyo laftan hal waa laabata u dhaxaysa laabata kasta wuxuu ku leeyahay hoormoonkan u qaabilsane ayuu ku leeyahay mar haddii uu hoos u dhaco hoormoonkii wuxuu sameysmaya xanuun baa imanaya waxa kale oo ayaduna qodobka labaad ee dhaca xilliga isbedelkaas waxa kamid ah mar alaala markuu hoormoonka hoos u dhaco jidhkii biyihii ayaa yaraada oo qofka biyo baxbaa ku sameysma oo biyo hoos u dhaca tusaale ahaan oo kale marka laabatada oo kale ama ruuga ama laabata kasta waxa u dhaxaysa kushin iyo carjooba u dhaxaysa labada lafood laf kasta iyo laf kasta waxa u dhaxeeya kushin ama carjooba u dhaxaysa iyo marka carjoodii iyo kushinkii waxa ka baxaya biyihii baa ku yaraanaya mar alaale iyo marka biyihii ku yaraadaan oo kale tusaale ahaan ruuga oo kale ruuga wuxuu leeyahay meniscus ama kushin buu leeyahay kaas biyihii baa hoos u ka baxaya marka biyihii ku yaraadaan waxa sameysmaya inuu kushinkii uu shaqadii uu qabanayay ee labada lafood si aanay isu xoqin si aanay isu taaban uu ka ilaalinayay oo uu sameeyay inuu space fiican kala helo inuu spaceka hoos u dhaco oo hoos u yaraado mar alaale marka hoos u yaraado waxa sameysmay in labadii lafood is xoqaan taasna oo waxa uu ku sameysmaysa qofka inuu sameysmo xanuun uu ku sameysmo gaar ahaan dumarka uu ku sii sameysmo way iyaga u nugul xaaladan isbedelka oo aan ka hadlayna maanta marka hoormoonka hoos u dhaco ama xaaladda isbedelka waxayna kale oo qofku ku sababi kartaa inuu qofku yeesho arthritis oo kale horena waan uga soo hadalay fiidiyoda haddii waana daawan kartaa haddii aad isku aragto xanuun joogto ah oo xilliga xaaladda isbedelka waxa muhiim ah inaad markasta la xidhiidho doctor la xidhiidho oo aad kala tashato xaaladaada iyo inaad isku sameyso shaybaadh dheeraad ah oo aad iyo aad muhiim bay u tahay xaaladda isbedelka sideebaad ula tacaalaysaa ama maxyaabaha aad sameynayso marka halkan waxaa kusoo gudbinaya bal dhowr waxyaabood oo aad sameynayso xaaladda isbedelka waayo mar allaale iyo markii uu hoormoonka hoos u dhaco waxa hoos u dhacaysa qaybtii laftaadu ka sameysnay ama macdanaha calciumta vitamin D oo kale oo aad iyo aad muhiim ugu ah caafimaad qabka lafaha oo laftii ay noqonayso daciif iyo mid jilicsan xaaladaasina waxay u nugushahay inuu qofku laftii cufkeedii uu hoos u dhaco oo ay ku dhacdo in uu ku yaraato macdanihii ay lafu ku yaraadaan
taas oo ku sabaysa qofka inuu jabitaan yimaado inuu jidh xanuun badan iyo laabatooyin xanuun badan uu qofku yeesho marka waxyaabaha muhiimka ah waxa weeye inaad samayso hadii jeer qaadato cuntooyin ama cuntooyin ay ku badan yihiin oo kale calciumta oo kale ay ku badan yihiin isticmaasho ama iyo inaad qaadato supplement ahaan oo kale ama waxa jira nafar badan oo la isticmaalo oo aad ka helayso meel kasta iyo farmacy kasta aad ka helayso oo calcium ah ama iyagoo vitamin D ahaan ah vitaminka cadceeda kuwaas oo dhan waxay aad iyo aad kaaga caawinayaan in ay jidhkaagii iyo aad hoos u kaaga dhaco xanuunka aad ka cabanaysid ama laabatooyin xanuunkaas in aad samayso jimicsi ama socod wixii aad samayn karto qof waliba waxa weeye waxay ku xiran tahay nooca uu jimicsi uu sameynayo da'diisa iyo nooca uu awoodo marka inaad samayso jimicsi aad iyo aad muhiim bay u tahay inaad controlsho oo aad miisaankaaga hoos u dhigto aad iyo aad iyaduna muhiim bay u tahay waxa kan oo laga maarmaan inaad markasta cunto dheelitiran waxyaabahaas oo dhan waxay ka caawinayaan in aad xanuunkaas hoos kaaga dhaco ama lafa xanuunka ama jidh xanuunka uu aad iyo aad hoos kaaga dhaco haddii uu xanuunkaasi uu wax isbedel aad isku arki weydo waxa mar walba muhiim ah inaad isku baadho dhakhtar la kulanto baadho caafimaad qabka lafahaaga cufka lafahaada hadii jeer scan ayaa la saaraa lafahaaga si loo ogaado intii cufka uu yahay raajis ayaa la saaraya si intii loo ogaado cufka laftaada cufkooda intuu yahay intuu boqolkiiba uu yahay caafimaad qabkeedu iyo inuu ay kugu dhacayso inuu waxyaabaha loo yaqaano osteoporosis aad u nugushahay oo kugu sababi karana waxyaabo badan oo haddii aanad ka hortagin ama aanad ka taxadirin mar walba waxaa muhiim ah ka hortag ayaa ka wanaagsan mar walba daaweynta marka daawadayaal intan ayaan kusoo koobayaa clipkiinan maanta ee ku saabsan laabatooyin xanuunka iyo lafaha ama jidh xanuunka oo had iyo jeer xilliga isbedelka xaaladda khaas ahaan dumarka taas oo dadku aad iyo aad uga cawdaan laakiin waxa muhiim ah in ay dadku ogaadaan oo si aqoon guud ah oo qofku ula socdo xaaladiisa fiidiyogan inta mar labaad ku kulmi doono fiidiyo kale oo talo bixin caafimaad ah aad iyo aad baan idin salaamayna wano iyo kulanti dambe bye